بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي ميلا joogtaan buu idin salaamayaa waxaan jeclahay maanta inaan xoogaa ra'yiga ku biiriyo taariikhda Soomaalida Soomaaliya ma Caraba ma Xabasha ama maxay ahato Ethiopia waxa loo yaqaano faraaciin ba ma maxay ahato ma Falastina ma maxay ahato Bantua xaggay Soomaalidu gashaa asalkeedu waxa xaqiiqa in magaca Soomaali la yiraahdo oo yahay wax cusub waxaana la yiraahdaa wuxuu la da'yahay Axmed Gurey Sayd Axmed Gurey rahimahullah wax aad u da'yar weeyaan sidoo kale waxa aad u da'yar iyaduna qabiilooyinka aan ku abtirsanno ee leena reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel Soomaaliga ugu abtirsiga dheero wuxuu tirsanayaa 34 oday uu tirsan karaa qofka ugu laandheeraysan 40 oday markii la isku celceliyo 1000 sanadood weeyaan ama 1200 sano haddaad badiso waliba ka hor xaggee jirta Soomaalidu arrin la yaab la weeyaan waxaan jeclahay maanta inaan xuso waxaa jira cadaymo muujinaya ama dhiigagan la yiraahdo DNA-ga oo la qaaday oo muujinaya Soomaalidu inay ku jirto dadka adduunka ugu da'da weyn caalamka dadka ugu da'da weyn ku jirto Soomaalidu sida beejada qabiilka la yiraahdo qabiilka Fulani la yiraahdo Nubiyiintii Masaaridii hore oo kaleeto dadkaas macnaha inaan ku da'nahay bal aan isku dhownahay xataa dhiig oo aan maxay isku group nahayba ala kulli xaal wax la yaab la weeyaan in 10,000 oo sano ilaa 26,000 oo sano ayaa lagu qiyaasaa da'da Soomaalida markii la baaro dhiigga DNA-ga marka in intaas la eg macnaha cimrigeedu intaas soo jiray oo ummadaha adduunka ugu da'da weyn leh haddana taariikhdooda aan aqoon horta nasiib darro weyn weeyaan runtii waxa laga xumaadana weeyaan runtii ala kulli xaal waxaan jeclahay maanta bal aniga cabirkayga ama odoroskayga ama intaas ra'yiyo fara badan oo soo aruushay qoraal fara badan oo soo aruushay inaan soo gudbiyaan jeclahay maanta dilaahay yiraahdo hadduu casharku xoogaa ku dheeraad iga raali ahada boqolkiiba boqol waxay u baahan yihiin in la faguro oo la cadeeyo u baahan yihiin koo waxaan jeclahay Soomaalidu dhiigga laga qaaday ee DNA-ga maxaa lagu ogaaday waxa lagu ogaaday dhowr arrimood arrinta koowaad lagu ogaaday waxa weeyaan Soomaalidu inay tahay dad isku nooc ah oo homogeneous ah dad aan inaba meel ku kala baxaynin oo hooyo aaba isku dhaleen ayaan noqonay dhiiggii la qaaday Soomaalida laga qaaday macnaha qabiilooyinka Soomaalida taqaano reer hebel la yiraahdo dir iyo daarood iyo hawiye iyo waxa soo dhan la isku dardaro waxay noqdeen wax ka badan 95% wada is dhalay weeyaan oo hooyo aaba isku dhalay weeyaan ama biraha jooga ama burcaha jooga ama boosaaso xafuun ha jooga ama maxay ii sheegeen muqdisho ha jooga ama kismaayo ha jooga ama buurgaab ha jooga ama lawi cadda meesha raba ha jooga ama Jabuuti ha jooga waa dad soo beledweynaha jooga meeshu macnaha dadku waa dad isku nooc weeyaan taas horta lagu ogaaday waxa ku jira oo la ogaaday oo kaleeto dhiig kaleeto oo shisheeya inuu ku jiro waxa laga helay dhiigan oo aad ugu fara badan runtii aan yareynba dhiigan dadka la yiraahdo saxaraha diga oo la yiraahdo barbarka la yiraahdo ayaa ku badan waxa kale oo ku jira dadkan carabta kamida ee Yemanta ee la yiraahdo ximyariyiinta la yiraahdo asagana waa laga helay dad fara badan laga helay Soomaaliya bal Soomaalida badankeed buu ku jiraaba macnaha percentage yar waay laakiin aad u yar weeyaan waxa kale oo laga helaa oo lagu arkaa dadkan Bantuga ee Angola iyo dhulkaas diga Afrikada dhexe dad kamid ah laga helaa dhiigooda marka waxa kale oo laga helaa Ethiopia dadkan Ethiopia gobolka Ethiopia la yiraahdo haday noqoto Amxaaro haday noqoto maxay Oromo haday noqoto noocyadaas oo dhan kulli dhiigooda waa laga arkaa Nubiyiinta sidoo kale waa lagu arkayaa laakiin percentage aad iyo aad u yar weeyaan tirada ugu faraha badan waa dadka Soomaali la yiraahdo weeyaan waana 95% wax ka badan weeyaan ala kulli xaal baaritaanada noocaas ku jira weeyaan daatada hadda ma soo bandhigi karo iyo maxay ahato laakiin waa wax jira oo la baari karo weeyaan taas horta lagu ogaaday cadeyntaas lagu ogaaday waxa kale oo la ogaaday maxay ahato Soomaalida magaceedu iyo da'deedu inaysan lahayn oo macnaha suura galahayn Soomaaliya hadda la ogaaday 500 sano 600 sano ka hor la ogaaday iyo wax ka sii yar waliba ummadana ummad kumanaan kun oo sano soo jirtay weeyaan marka magacoodu muxuu ahay maxaa la dhihi jiray bunti waan haynaa oo faraacinta kale ugu yeeri jireen bunti ay ugu yeeri jireen laakiin faraacintii waqti hore ahaayeen waqtiyada dhexe hore maxaa la dhihi jiray magacyadoodu maxay ahaayeen iyo xataa wixii ka soo horreeyay waqtigaas buntiga waxaan jeclahay maanta inaan xuso qoladan la yiraahdo Sumeria waxaa jirta boqortooyo la yiraahdo Sumeria
magaca Sumeria iyo Soomaaliya isku mid weeyaan. Boqortooyada Sumeria la yiraahdo waxay jirtay kumanaan kun oo sano ay soo jirtay, waana xadaaradaha adduunka ugu faca weyn weeyaan. waa dadkii falaga sameeyey, cilmiga falaga sameeyey. waxaa la yiraahdo maxay tahay qoraxdu inay 365 jeer ku wareegto dhulka sanadkiiba. xisaabaadka saacadda ayaga sameeyeen 60 daqiiqo hal saac waxyaabo noocaas oo ayaga sameeyeen. daqiiqadaha sekinada kulli ayaga sameeyeen. maxay tahay halbeegyada mathematicalka ayaga inta ugu badan sameeyey. marka caadi ma ahayn, dad waxay ahaayeen tafa oo aad iyo aad u horumarsanay ahaayeen, waana la baaba'shay. eber ayaa laga dhigay. akaadiyaankii ayaa tirtireen iyo siiriyiinta iyo waxyaabo noocaas ay isugu tageen oo baabax ka dhigeen. marka waxay ahaayeen dad asalkoodu waxay deganaayeen oo xarun u ahayd oo magaalo madaxdoodu ay ahayd waddankan Ciraaq la yiraahdo. kurdidu waa sheegtaan, ciraaqiyiintu waa sheegtaan, laakiin luuqadiina kuma hadlaan, midabkiina ma lahan. dad madow bay ahaayeen. dad cadaan waa lagu arkayaa musawirradooda, laakiin madowga ka badan. masalan boqorradooda waxyaabaha aniga soo jiita waxaa kamid ah boqorradooda qaar kamid ah waxaa la dhihi jiray duudu, midka qaar la dhihi jiray boqortooyo saas dhaxashay lahaayeen oo magaca noocaas. waxaana weeyaan boqortooyinkii uu kasoo jeedo kuwii ugu dambeeyey weliba oo la dhihi jiray nabiyullahi ibraahim calayhi assalaam ka dhashay. boqortooyo uura la dhihi jiray. mid kale waxaa la dhihi jiray dudu. mid kale waxaa la dhihi jiray maxay ahayd ii sheeg shargeli. gabadhoo kale markay tilmaamayaan gabadha waxay leeyihiin ningeli. waxaas oo dhan way noqon kartaa. macnaha luuqadda sida adigu u rabto loo fasiri maayo. qofka qorayay ku xirantaa qaabka uu qorayo, laakiin adigu Soomaali ahaan waad fahmaysaa. buurtoo kale waxay u yaqiinaan kur. ilaa haddana Soomaalida kuray yiraahdaan buurtoo kaleeto. waa waxyaabaha cajiibka ah. magacyada badanaa adduunku iskama amaahdo. magacyadu originaal weeyaan. marka kur ay yiraahdaan. waxyaabaha la yaab kale aan ku arkay weeyaan. waxaa ku jira boqortooyo la dhihi jiray kish la dhihi jiray kush wax noocaasa. midabadooda dad madow weeyaan. meel walbayna ka tali jireen. boqortooyo aad u xoog badan ay ahaayeen. waa la tirtira marka. أنا waxaan isleeyahay Soomaalidu waa dad ka soo cararay halkaas, badda ka soo suka maray, halkaan soo degay, sidaasna ku tarmay, isqarinayay oo ka baqay in la laayo, sababtoo aad loo daba joogo aad loo leeynay. marka anigu waxaan isleeyahay waxaan kula talinayaa aqoonyahanada Soomaaliyeed inay ka haraan ajnabiga oo ay taariikh Soomaaliyeed raadiyaan ayagoo madax bannaan. taasaan kula talin lahaay. magacyada haddii la akhrinayo maxay ii sheegeen, qoraaladu haddii la akhri karo, haddii DNA la baari karo, waxaas oo dhan in xoogga saarno meeshaas haddii Ilaahay yiraahdo. soo soco waxaa timaada faraacinta imaad. faraacintii annaga maxaa naga dhexeeyey? horta faraacinta absolutely wax weyn naga dhexeeyey. waxaa xusid mudan nimanka la yiraahdo Sumeria iyo faraacinta waxay ahaayeen parallel ahaayeen, dad isla shaqeeyay ahaayeen, isku waqtina ah, laba qolo isku nooc ahin ahaayeen. faraacinta annaga inta naga dhexeysa taariikh walba og, cid walba og. magacyada fircoon, waxa maxay heble qorax, dayax, libaax, heble, waxaas sida taqaano u yaqiinay magaca ugu yeeri jireen. marka wax cajiib ah naga dhexeeyay. ugu yaraan luqadda naga dhexeysay markay ugu yartahay, hadana wada dhalashaba naga dhexeynba. faraacinta marka wax weyn naga dhexeeya, laakiin mafraacinaan nahay anagu. Allahu a'lam. xaqada anagu waxaan nahay Soomaaliyaan nahay. waxaan isleeyahay magaca saxda ee Soomaaliya ay leedahay waa Sumeria weeyaan. taas horta intaasaan kala yahay faraacinta. dhiig fara badan xataa la wadaagnaa jira. kasoo gudub waxaa timaadaa, waxaan jeclahay inaan xuso meeshaan ku xuso aayado quraan ah oo iga yaabshay oo runtii mar walba aan akhriyo maskaxdayda aan ku celceliyo. suuradahay ku jiraan. aayadda 39 ee suuradaha waxay leedahay nabiyullaahi muuse calayhi assalaam hooyadiis ayaa ilaahay wuxuu ku amray inay wiilkeeda santuuq ku riddo, baddana ay ku riddo. cadow waa soo qaadan doona. baddaasuna waxay geey doontaa meel saaxil la yiraahdo. falyulqihi al-yammu falyulqihi bis-saaxili yaakhudhu caduwwan lii wa caduwwan lahu. ay leedahay ayadda qaybteeda dambe. baddu waxay geey doontaa saaxilay geey doontaa, cadowgiisa iyo cadowgaygaa soo qaadan doona ayuu leeyahay Allah subxaanahu wa tacaala. mufasiriintu waxay ku fasiraan baddu waa bad caadiya, santuuqa lagu riday, xeebtuuna geeyey. laakiin aniga fasirkaygu ka duwan yahay. waxaan leeyahay saaxil waxaa loo yaqiinay dhulkan Soomaalidu degto, Kenyaatigu dego, Tansaaniya ay degto, laga soo bilaabay meelahan soko oo casab, dhulkan maxay ahayd Eritrea ilaa maxay ahayd Zanzibar ay carabtu waagi hore waxay u yeeri jireen iyo ummadihii horeba saaxil ay dhihi jireen saaxil. marka waxaan leeyahay fasirkaygu aniga badda way soo qaaday, saaxil ayayna keentay nabiyullaahi muuse calayhi assalaam. waxaadna ka arki doontaa waxyaabo cajiib ah oo kaleeto oo aan kusii arkayaa jira. saasuu fircoon uga badbaadi.
hadduu fircoonka heli lahaa masar iyo agaaradeeda iyo meelahaas maba daayeenba waa dili lahaaba wuxuu ogaa lahay canugaanu reer banu israa'iil inuu yahay ogaa lahay maadaama uu dhulkan kasoo helay ayuu sidaas ku xushmaynayay aadayna u xushmay jireen dhulka soomaalida iyo soomaalidaba faraaciintii horeeto taas horta waan ku arkay waa kow waxaan kaloo arkay nin la yidhaha saamiri ninka saamiri la yidhaahdo nin dhibaato fara badan ku sameeyey oo nabiyullahi muuse calayhi asalaam mana uusan la dagaalin nabi muuse calayhi asalaam wuu habaara laakiin laami saasuu ku yiri lagu haytaaban ayuu ku yiri nabiyullahi muuse calayhi asalaam ninka saamiri la yidhaahdo mufasiriintu waxay ku fasiraan magaciisa in saamiri la dhihi jiray laakiin xaqiiqda aniga fahamkayga waxaan is leeyahay ninkaas sumeri u ahay sumeri ayuu ahay qur-aankuna magacyada noocaas waa sameeyaa sida ciise oo kaleeto joshua ayaa lagu yidhahdaa afka cibriga wax noocaasa yeshua iyo waxba noocaasa magacyadu waa saddex galaa saasoo kale waa laisku qaldaa marka calaa kulli xaal sumeri inuu jiray oo sumeriyiin ay jireen aayaddaasa caddaynaysaan isleeyahay anigu fahamkaygu hadduu sax yahay midda kaleeto sababtoo nabiyullahi muuse uu la dagaali diido ninka uu dili waayey ama u dhibaatay waayey iyadana firkeedu meeshay ku jirtaa waxaan is leeyahay waa dadkii soo badbaadiyey oo maxay abaal u hayaa possible wallahu aclam xaqiiqada laakiin meeshaas waxbaa ku jiraan is leeyahay ninkaasu nin wanaagsan maahay laakiin waa nin tegey xataa hadduu awoogaa yahay wax dhibaataa ma lahan camalkaada ku hor yaalla arrimahaasaan ogaaday marka arrimahaasuna kulli waxay fasirayaan soomaali waxa la yidhaahdo iyo sumeri waa isku magac absolute isku magac weeyaan ra'da iyo la'dana waa la isku qaldaa annagaa isku qaladnaa waalid waxaasaan yidhaahnaa marka calaa kulli xaal arrimahaasaan ogaaday waxaana jeclaystay in taariikhanada soomaaliyeed ay xoogga saaraan magaca sumeri la yidhaahdo sumeriya dad fara badana sheegta laakiin ilaa hadda wax luuqadoodii ku hadla caalamka lama hayo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu